wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa maanta qalab xafiiseed waxay ku wareejiyeen ilaa 5 iskaashato oo kamid ah iskaashatooyinka beeraha ee magaalada Jowhar. goobta wasaaradda beeraha agab xafiiseedka ay ku wareejinayeen waxaa goobjoog ahaa maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe iyo kan degmada Jowhar. agabkan maanta lagu wareejiyay iskaashatooyinka beeraha ayaa waxay ka kooban yihiin laptopyo, desktop, projector, printer, xoojiyaha dabka, taleefano iyo qalabka internetka. waxa ugu horeyn goobta ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka dhinaca maaliyadda ee maamulka degmada Jowhar Cili Warsama Faarax, duqa magaalada Jowhar Saalax Muude Cali iyo wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare. marka hore waxaan leeyahay waxaan marqaati ka nahay oo aan marka hore aan ugu mahadcelinaa wasaaradda beeraha anaga ka maamul ahaan wali ma arag wasaaradda dhisan oo Hirshabelle oo iskaashatooyin saandii ragelin ugu sameeyay oo horteena keenay waxay ugu tala galeen horteenana ku wareejiyay. taas waxaan ku bogaadinaa wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka Hirshabelle iyo cidii ka caawisay. waxaan marqaati ka ahay gacantii u soo dhiibtay iyo gacantoodiiba inay si sax ah iskaashatooyinka loogu tala galay ay ku wareejiyeen. wasiirka beeraha shalay toole ayaan waxaan soo wareegnay oo soo kormeernay xafiisyadii iskaashatooyinka iyo beerihii in badan ayaan soo wareegnay. maanta wuxuu ka jawaabay cabashadoodii iyo waxyaabihii shalayto ay ka cabanayeen maalmahan dhahayeen ay sugayeen qaar ka mid ah sida aad arkaysaan qalabkan quruxda badan leh xafiisyadii shalay marnaa ee xaba aan oolin haddii la dhigo qalabkan waxaan u malaynayaa inuu noqonayo xafiis qof leeyahay iskaashato leedahay ee markaa muuqanaya. kulankeena maanta wuxuu ku saabsan yahay in la idin guddoonsiiyo qalab agab oo loogu talagalay in beeralayda iskaashatooyinka lagu hormariyo. qalabkaas oo la siin doono iskaashatooyinkii qaybtan koobaad, qaybta labaadna la siin doono kanaaladii, qaybta waraabka iyo qaybta wax soo saarka. mudane wasiir, alaabtaani waxaan la wareegnay 18 bishii 2 2021 waxayna qayb ka yihiin qorshihii 5 mashruuc ee wasaaraddu ay waday. qiyaas 40 milyan ay ku baxaysay oo kala duwanaa qaybo kamid ah. qaybtii ugu horeysay ayaan maanta dhiibaynaa. dhinaca kale wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka Hirshabelle xildhibaan Maxamed Cumar Ceymoy ayaa sheegay qalab xafiiseedkan maanta ay wareejiyeen in uu yahay codsi kaga yimid iskaashatada beeraha wasaaradana codsigaasi maanta ay fulisay. codsigii ka yimid iskaashatooyinka qaarkood macnaha iskaashata hadda waxaan siinayna qaarkood markaan leeyahay waa 5 iskaashato waxaan ugu talagalnay hadduu alhawada la ogolaado waxaan waa bilow. waxa kale oo aan ku xiji doonno waxay tahay haddii iskaashato haddii beeraha la yiraahdo wixii lagu waraabi lahaa kanaalo ayagana birbaan sii doonaa. wixii kaleento oo dhimanna oo iskaashatooyinka ahna hadduu alhawada la ogolaado sidaan iyo si ka sii fiican ayaanu rabnaa inaanu qalab aan u guddoonsino hadduu alhawada la ogolaado. Ibrahim Ali Nur, TV Universal, Jowhar.